بسم الله الرحمن الرحيم. daawadayaal cashirkan waa cashirkeenii labaad ee ku saabsan cilmi baarista. cashirkeen koowaad waxa ugu soo hadalnay hordhac ku saabsan cilmi baarista iyo qeexitaanadeeda. cashirkan oo ah midkeenii labaad waxaan uga hadlaynaa noocyada cilmi baaristu ay leedahay, types of research, iyo ujeedooyinka laga leeyahay noocyadaas. cilmi baaristu ay noocyo badan tahay waa inay kala duwan tahay. inta aan bilaabin cilmi baaristu waxaa habboon in aan isweydiino maxay tahay hadafka laga leeyahay cilmi baarista. fideogan waxaynu ugu soo bandhigi doonaa noocyada cilmi baariseed kuwooda ugu muhiimsan. noocyada cilmi baarista waxaa u kala qaadi doonaa laba qayb waaweyn: cilmi baaris saafi ah pure research iyo cilmi baaris la dabaqay applied research. buugaagta qaar waxa ay qoraan fundamental or basic research oo ah cilmi baaris aasaasi ah iyo applied research oo ah cilmi baaris la dabaqay. marka anaga waxaynu qaadanaynaa cilmi baaris saafi ah pure research iyo cilmi baaris la dabaqay applied research. waxaa jiro noocyo kale oo cilmi baariseed, waxayna kala yihiin cilmi baaris sahmiyeed oo loo yaqaano exploratory research, cilmi baaris qeexineed oo ayadana loo yaqaano descriptive research, cilmi baaris sharaxeed oo loo yaqaano explanatory research, iyo cilmi baaris saadaalineed oo loo yaqaano predictive research. marka waxaan u qeexaynaa mid mid iyo ujeedada laga leeyahay. waxaa ugu hore usoo qaadanaynaa cilmi baaris saafi ah pure research. inta badan cilmi baarista noocan ah waxaa loo sameeyaa si loo ogaado xog aas-aas u ah cilmiga sayniska. marka la sameynayo cilmi baarista noocan ah, hadafku ma ahan in la adeegsado durbaba oo la dabaqo natiijada kasoo baxda cilmi baarista, ee hadafku waxa uu yahay in la horumariyo cilmiga jiro, la caddeeyo lana sharxo xiriirka ka dhexeeya doorsoomayaasha variables. hadafka cilmi baaristan waxaa kale uu noqon karaa in la horumariyo fahamka aqooneed ee aanu ka haysano dunida aan ku noolnahay. waxaa laga yaabaa in uu qofka isweydiiyo, haddii aan cilmi baaristan xal toos ah loogu raadinayn dhib jiro ama aan looga jawaabayn su-aal aan jawaabtooda lahayn xilligaas, maxaa lacag iyo waqti ugu luminaynaa, maxaase iskugu dhibaynaa? jawaabtu waxa ay tahay cilmi baarista saafiga ah pure research waxay aas-aas u tahay cilmi baarista oo dhan, waxayna wadada usii xaartaa in la amba qaado waxa loo yaqaano cilmi baaris la dabaqay applied research. haddii aan la helin cilmi baaris saafi ah pure research, way adkaanaysaa in la amba qaado cilmi baarista la dabaqo, waana silsilad isku xiran. nooca labaad oo loo yaqaano cilmi baarista la dabaqay applied research. guud ahaan cilmi baarista la dabaqo waxaa loo amba qaadaa si looga jawaabo su-aalo aan jawaabtooda lahayn ama xal loogu keeno dhibaato jirta. inta badan hadafku waxa uu yahay in wax la qeexo ee maahan in la curiyo. cilmi baarista noocan ah waxaa aas-aas u ah oo ay raacdaa cilmi baarista saafiga ah. haddaba su-aashu waxa ay tahay, muxuu yahay farqiga u dhexeeya labada nooc ee cilmi baariseedda? midda hore waxay ka caawinaysaa aadanuhu inuu wax badan ka ogaado dunida aynu ku noolnahay, halka cilmi baarista kale ay ka caawinayso aadanuhu inuu xal ugu raadiyo dhib jiro ama su-aal aan jawaabteeda lahayn. cilmi baaris walba waxa ay leedahay hadaf gaar ah oo lagu gaaro. waa muhiim in cilmi baaruhu yaqaano nooca cilmi baariseed uu amba qaadaya inta uusan howsha faraha la gelin, waana in cilmi baaruhu ogaado midda uu hadafkiisa ku gaari karo. waxaa marar badan dhacda in la amba qaado cilmi baaris, haddana natiijada kasoo baxday ay midho dhal ahaan weydo amaba ay xiriir la yeelan weydo hadafkii laga lahaa cilmi baarista. taasina waxaa loo aaneynayaa in bilowgeedii hore cilmi baaruhu uusan ogeyn nooca cilmi baariseed ee ku habboon waxa uu doonayo. qeybaha casharka ka dhiman waxaan ku sharxi doonaa noocyada kale ee cilmi baariseed, waxaana ugu horeysa cilmi baaris sahmiyeed ee loo yaqaano explanatory research. cilmi baarista noocan ah waxaa la sameeyaa marka aysan jirin wax horey looga qoray arrintan, oo ay tahay markii ugu horeysay ee lagu sameeyo cilmi baaris. cilmi baaristu waxay isku dayaysaa in ay ogaato xog badan oo la xiriirta arrintan, maadaama ay tahay markii ugu horeysay ee cilmi baaris noocani la sameeyo. daraasad sahmiyeedku waa ay dabacsan tahay flexible, waxaa lagu xalin karaa noocyada kala duwan ee su-aalaha cilmi baarista sida sababta, maxay iyo sidee. cilmi baaristu waxa ay isku dayaysaa in ay soo bandhigto xog cusub iyadoo aysan jirin wax horey loo sii saadaaliyey ama loo mala awaalay hypothesis. haddaba cilmi baaris sahmiyeedku waxaa lagu soo koobaa sidan: in aqoon dheeraad ah iyo faahfaahin laga helo wax la baarayo, in la curiyo fikir cusub iyo in la horumariyo aragtida theories, in la curiyo mala-awaal cusub, in wadada loo sii xaaro suurtagalnimada in cilmi baaris kale oo dheeri ah la amba qaado, in la helo jiha mucayan ah oo loo raaco daraasadaha mustaqbalka. cilmi baaris kale oo qeexayn waxay noqonaysaa cilmi baaris qeexineed descriptive research. cilmi baarista noocan ah waxay qeexdaa arrin gaar ah waxayna diiradda saartaa waxa dhacaya hadda. sidoo kale
waxay diiradda saartaa imise jeer ayay hore u dhiceen arrimaha noocan ah. Daraasaddan kama hadasho sababta ay arrin u dhacdo ama u dhacday intaba. Sababaha loo ambaqaado daraasadda noocan ah waa ay fara badan yihiin, waxaase ugu sii muhiimsan in la muujiyo xiriirka ka dhexeeya doorsoomayaasha variables. Marka daraasadda la ambaqaadayo, cilmi-baaruhu waxa uu adeegsan karaa qidado kala duwan oo uu xogta ku soo aruuriyo. Waxaana ka mid ah qidadahaas ama habkaas in uu indho-indheyn ku aruuriyo xogta observational method ama qaab daraasadeed ah study method. Daraasaddu waxay u kuurgashaa xaaladda, dabeecadaha, dhaqanka iyo ra'yiga ay leeyihiin koox gaar ah. Sidoo kale waxaa la adeegsan karaa wareysiyo kala duwan oo dadka lala yeesho. Daraasaddan waxaa loo adeegsan karaa habka taranta quantitative iyo tayada qualitative. In la go'aamiyo nooca la adeegsado waxa ay ku xiran tahay su'aalaha cilmi-baarista research questions. Noocyada kale cilmi-baarista waxaa ka mid ah cilmi-baaris sharaxeed exploratory research. Daraasadda noocani ah waxa ay sharaxdaa sababta ay wax u dhacayaan, waxay qiimeysaa waxa sababa xiriirka ka dhexeeya doorsoomayaasha variables. Waxaa kaloo loo adeegsadaa in lagu tijaabiyo xiriirka ka dhexeeya mala-awaalka hypothesis iyo saameynta ay isku yeelan karaan doorsoomayaasha. Cilmi-baaris sharaxeedku waxay ka jawaabtaa sababta iyo sida ay wax u dhaceen, waxay raacdaa waxa sababay iyo saameynta xiriirka ka dhexeeya labada doorsoome. Cilmi-baarista waxaa la ambaqaadaa marka xogta la hayo ay yar tahay lana rabo in la sii faahfaahiyo xogtaas yar oo la keeno faahfaahin dheeri ah. Hadafku waxa uu yahay in la helo xog badan. Noocyada cilmi-baarista ee midda ugu dambeysa aan kusoo gabagabeyneyna waxay tahay cilmi-baaris saadaalineed oo afka qalaad lagu dhaho predictive research. Cilmi-baarista noocan ah waxay saadaalisaa ififaalaha mustaqbalka iyo suurtagalnimada waxaas in ay dhacaan. Cilmi-baarista inta badan waxay ku bilaabataa in la raadiyo wixii dhici doono iyadoo laga qiyaas qaadanayo wixii horey loo ogaa amaba horey usoo dhacay. Cilmi-baarista noocan ah waxaa lagu lifaaqaa fasiraaddii ay soo jeedisay cilmi-baaris sharaxeedkii exploratory research. Cashirkan oo ahaa cashirkeenii labaad waxaa kusoo gabagabeyneynaa inta. Waxaa inoo balanaha cashirka